nabad daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka la hadal oo si toos ah idinkaga imaanaya Nairobi waxaan ahay Cabdilcasiis Barrow Soomaaliya 27 sano ee ugu dambeysay waxa ay sameynaysaa kobac dhinaca warbaahinta la xiriira laakiin dad fara badan oo Soomaaliyeed wali waxa ay saadaalinayaan in warbaahinta Soomaalida meeshii la rabay aanay gaarin sababaha waxa ay ku sheegayaan suxufiyiinta oo aan helin khibradii ku filnaa laakiin sidoo kale waxa jira wariyaal kale oo ka shaqeeya marka laga yimaado hay'adaha warbaahinta Soomaalida kuwa kale oo ay leeyihiin wadamada ajaanibta sida kuwa reer galbeedka sheekooyin fara badan ayay soo dhigaan warbaahintaasi Soomaali fara badan ayaa ku xiran oo ka hela sheekooyinka ay soo bandhigaan waxaana kamid ah oo stuudiyaha ay kula sugan barnaamijkana xilligan marti iyagu ah Cabdalla Axmed Muumin oo isaga suxufi ka shaqeeya wargeyska The Guardian sidoo kalena ka tirsan ama la shaqeeya BBC-da qaybteeda dibadda la hadasha Cabdalla ku soo dhaw RTN iyo waliba barnaamijka la hadal watahay Cabdalla waayidii ugu dambeysay waxaad sheekooyin ka qorayseen magaalada Muqdisho oo inta badan aad ahayd shakhsiga sheekooyinkaasi qaabilsanaa uu qoray waxaad inooga sheekaysaa wararkii ugu dambeeyay iyo waxyaabaha aad ku qorteen Soomaaliya Cabdilcasiis mahadsanid adiga RTN dhawaantoodna salaamaya saaxiibaday marka aad ku mahadsantahay barnaamijkan maanta aad ugu marti qaaday arrimaha saxaafadda aan ku fiirinayno Soomaaliya sheekooyin badan ka socdo dhacdooyin badan ka socdo isbedelka dalkana runtii wuxuu ku socdaa si xoog leh isbedelkaas oo leh xumaan iyo fiicnaan labadaba sheekooyinka ugu dambeeyay anigu shakhsiyan ka shaqeeyay dhowr ay ahaayeen laakiin waxaan u maleynaa ugu muhiimsan yihiin bishii 7 maraan ku laabtay Muqdisho oo aan dib u fiirinay Muqdisho isbedelka ka dhacay haday tahay nabadgelyada haday tahay ganacsiga soo kordhay haday tahay dadka qurbi joogta soo laabanay hadii ay tahay fanka hadii ay tahay maartay dib u dhiska magaalada arrimahaas ayaan dib u fiirinay waxaan arkayay in dad badan oo qaarna gudaha joogeen oo aan dalka weli ka bixin iyo qaar intay bixeen oo soo laabtay oo dhamaantoodba niyad sami badan muujinay laakiin niyad samidaas badankeed hadda ay u muuqato inay soo dhamaanayso oo ay sii shaqeyso ayaan arkay watahay waxa jirtay oo dabcan dadkii akhriyana aan kamid ahaa sheekaad ku qortay wargeyska The Guardian oo aad ciwaankeeda ka dhigtay Muqdisho is rising oo macnaheedu way soo kabanaysaa markaan dib u eegno maqaalkaasi uu dheeraa sheekooyin kala duwan baad ku soo qaadatay maxaa qasbay in 27 sano kadib iyadoo warbaahintii Soomaalida maalin kasta ay soo qaadaan Muqdisho ay kabanaysaa in haddana adiga aad wargeyska The Guardian ku qorto sheekadana xiisaha idin lahayd maxay tahay waxa isbiirsaday dhowr arrimood marka ugu horeysa waxay tahay aan rabnaa inaan xusuusano October 2017 ayaa dad 600 qof oo Soomaali ah hal maalin lagu dilay isgoyska Soobe toddobaadkii ku xigana 28 kale ayaa lagu dilay hotel la yiraahdo Naasaha Plateau oo Muqdisho ku yaala intii muddadaas ka dambeysana dhimasho kala duwan iyo khasaare kala duwan dadka Soomaalida soo gaaray baa dhacay waxa markay isweydiintu ay tahay sawirkaas iyadoo adduunka uu qaatay oo adduunku arkay Muqdisho oo gubanayso dadkii ay dhimanayaan oo dhibaato ay ka jirto dhiglaan loo dhimanayo in markii Muqdisho aan tagay bish 7 aan ku arkay in wixii dadku ay u haysteen ama ay maleysay wax ka duwan jireen in ay jiraan hotel cusub la furay in ay jiraan dad cusub magaalada ku soo laabanay oo banaanka imaanay in ay jiraan fikrado cusub oo la alifay oo nooc kasta haday tahay music haday tahay idaacado haday tahay maartay dibudhiska haday tahay ikhtirac ku saabsan xagga maartay ganacsiga ku saabsan taas ayaa si gaar ah anigu ii soo jeetay marka taas keentay sheekadaas inaan qorno waxay ahayd sheeko la yiraahdo feature story oo aan ahayn midda newska ay joogtada maalmo bariyaasha ka warmaan aan ahayn waa hadii aan dhinaca kale u dhigalno waxa u dhigantaa sheeko maqaal oo kale noqonayso dadka looga sheekay waxa meesha ka tahay xaqiiqatan oo la sawiro qof aan meesha joogay ina geyso oo aad u sawirto qoraal ku muujinayo waa tahay sheekadaas aan mar kale dul taaganahay isla ciwaanka habka xulashada ayaa macno gooniyo u lahaa dadkii akhrinayay oo aan arkayay dad fara badan oo ajaanibi Soomaali laba inay ka hadlayeen waxa sheekada marka aad tiri Muqdisho way soo kabanaysaa waxaad sii raacisay qosolna waynu baashaalna music ayaan ciyaarnaa Muqdisho soo kabanaysa marka inaad qosol music iyo soo kabasho Muqdisho aad ku lamaanto xisaab goonida hay'ad Cabdalla Hayta waa mahadsantahay Barrow
waxaa barnaamijkaas si gaar ah aan ugu talagalay qayb ama column wargeyska Guardian uu leeyahay oo la yiraahdo The Upside oo micnaheedu tahay in dib loo fiiriyo meelaha adduunku dhibaatada ugu badan ay ka jireen ee isbedelka uu ka dhacayo ama xaalado markii hore laga warrami jiray inay ahayd meelo maaragtay mees ama dhibaato badan ay ka jirto hadda isbedel sameynaysa yaa loogu talagalay marka ciwaanka aan u xulanay waxay ahayd in aan tilmaano in muqdisho qosol uu ka jiro dad qoslaa inay jiraan ujeedada qosolka aan si gaar ah anugu xulka igu leeyahay waxay tahay waxaa marka ugu horeysay aan la hadlay nin kabanka ama musica tuma oo xeebta jooga Liido jooga oo kamid ah markii la weerarayay baarka Liido dadkii meeshaas joogay ka badbaaday oo iyaga sheekay intuu darbi ka booday oo maaragtay si aad iyo adirqi ah ku fakaday ninka isaga baa hadana intuu soo laabtay dhowr bilood kadib fadhiyo wili baarkii la fadhiyo oo music tumaya marka sheekadu waxay tahay qof noocaas oo kala ma islahayn inuu qoslaa isma lahayn laakiin qosolkiisa markaan arkay yaan halkaas ka keenay ciwaanka ka arkay marka ciwaanku wuxuu ahaa waan qosolnaa waan heesnaa waan ciyaarnaa musiga muqdisho oo soo kabanaysa aad iyo aad runtii dad fara badan oo daawanaya ayaa isfasiran kara marka la yiraahdo muqdisho soo kabanaysa haddana hay'adihii warbaahinta Soomaaliya colaadaheeda iyo dhibaatooyinkii ka taagnaa iyo macluushii sawiri jiray in sawirka maanta ay sawirayaan qudheeda xiise kale leh aan u soo laabto isla sheekadaasi meelo kala duwan baa hadbad marba tagaysay mar waxaa jirtay dhinacaasi kabankaad aadaysay mar kale waxaad soo qaadatay sheeko ku saabsan dhalinyaradii ubaxa caasimadda ee wadooyinkii iyo arrinta la xiriirta Sabra Crossing ama meesha dadka ay maraan oo kale oo laamiyada ay ka gooyaan oo kale xariiqayay ubaxyo talaalayay oo mararka qaarkood ka cabanayay dhibaatooyin ay la kulmi kareen intii aad sheekadaas ku jirta dhalinta maxay ku sheegeen sidii marka hore ay ku timid oo aan ku arkay waxaan hor dadka la sheekaystay marka magaalada tagay dadka magaalada joogay maaragtay og ama la socda waxyaabaha kusoo kordha marka tagto hoteelada marka tagto maqaayadaha meelaha shaaha lagu cabo dadku waxay ku sheegaan waxyaabo kala duwan hadii aad tahay qof journalist ah oo maartay si dhaba rabo inuu wax u qoro ama wax u sameeyana waa in dadka dhageysataa marka ugu horeyso oo dadku waxyaabaha ay ku sheegaan waxyaabo kaaga soo baxay waa in aad raadraac ku sameyn kartaa marka waxaan arkay dad ka sheekeen ama ka hadlaaya dhalinyaradaas intay soo baxeen isxilqaan ku wax ku bilaabay oo wadooyinka ku sameynaya calaamadihii runtii xamar dhismaysa laakiin waxa hadana la yaab kale waxay tahay in adeegyo badan oo asaasi ah muhiim ah inaanay dadka dawladda maartay ahayd mas'uuliyadda inay qaataan inaanay ogeyn ama ku baraarugsanayn waxaan arkay tusaale yar hadaan ku dhexgeliyo wadada ka soo tagta ka degata isgoyska sayidka ee xagga bakaaraha u degata waxaan ku arkay dhowr calaamadood oo kuwa calaamadaha hareeraha wadooyinka lagu suro sida iskuulka iyo meelaha dadka gooyaan loogu talagalay laakiin af Ingiriisi ku qoran af Ingiriisi ku qoran marka aniga waxa isweydiiyay micnaha ay keenayso in qof xamar jooga in calaamad wado loo sameeyo haddana af Ingiriisi lagu qoro taas micnaha ay keenayso ma fahmin mana garan laakiin waxaan arkay dhalinyarada ubaxa caasimada ay sameynayaan dadaalka noocaas oo maartay meelaha dadka gooyaan wadada dhirayn ayay bilaabeen inkastoo aysan sii raagin oo maartay sababtoo hadii geedka la beero oo aan biyo uusan helin oo aan xoolaha laga ilaalin daryeel buu u baahan yahay ma sii nagaanayo marka qaarkood baan la sheekaystay waxay ii sheegeen inaan cid lacag siisa inaan jirin qaarkood waa arday hore intay jaamacadaha ugu qalin jibiyeen aan shaqooyin haysan marka waxaan go'aansaday in iyaguna aan meeshooda tago la kulmo waxa la yaab kale waxay ahayd qaarkood markaan wareysanay xaaladda amniga ee magaalada lagu jiro darteed baana keenaysa waxay qaadatay waqti aad u badan in aan xafiiskooda tago oo aan isfahamno waqti aad u badan gaari baan watay waxaan ku iri mid kamid ah meel fog bay joogtay gabar waxaan ku iri aan soo qaadno xafiiskan ku geeno way naga diiday sababtoo waxay ka cabsanaysaa anaga laftarkeena inaga baqayso cid aan anaga laftarkeena naga baqayso sheekan qorina oo kaliya wada sheegtay kan qorina kaliya oo sheegay laakiin markii dambe markay aragtay oo ay nagaratay waxay taa idinku tihiin ma ba idinka carrar lahayn watahay Cabdalle sheekadaasi aan dib ugu sii socono mid kamid ah gabdhaha la hadasheen oo wargeyska ku soo qorteen waxa ay sheegtay in xaaladda amaan ee haysa darteed nambarada aanay aqoon wicitaanka telefonkeeda aanay ka jawaabin sidoo kale ayadoo indhaha aan xiran oo aan niqaab wadan aanay suuragal ahayn wadooyinka inay marto oo cabsi ay muujinayaan markii aad eegto dareenka dhalinyaradaasi ay sameynayeen intii aad sheekadaas ku dhex jirtay
waxyaabaha xiisaha leh oo aad waraysigaasi ku xasuusanaysay sheekadaas aad samaysay maxaa ka mid wax badan horta xaaladda waan kala socday oo magaalada ka jirta maarata ee cabsida ku saabsan laakiin markaan muqdisho tagay dhowr qofna waan uga sheekeeyey waxaan haystay fikir ah la iina muujiyey marka aad ku tusaale qaadato waxa ka socda baraha bulshada facebooka iyo twitterka faataadhugda ka socda iyo propagandada beenta ah ee ka socota markaan arkay waxaan u haystay magaalo maaragtay amniga uu soo laabtay oo qofka Soomaaliga ah muwaadinka Muqdisho degan uu xor ku socon karo laakiin nasiib darro markaan Muqdisho tagay ayaan ogaaday in waxaas aanay jirin oo waxa dadka caalamka jooga loo sheego ay arrinta taas ka duwan tahay maxaa ka jira runtii xaqiiqdii Barrow waxaa jira waxyaabo badan oo aan isdhihi karo aniga u badan fake news ama wararka been abuurta ah waxaad arkaysaa dad baa waxay ku soo dhigayaan sawirro goobo wax ka dhaceen oo maaragtay magaalada ka mid ah oo xaqiiqdii aan ka turjumaynin dhacdada saxda ah meeshaas ka jirta aan ka turjumaynin qaar baa waxay sameynayaan ama kula wadaagayaan warar badan oo aad u malaysan karto ama aad gaari karto in 100% ama 99% inay run yihiin laakiin marka aad fact check ku samayso aad dib u baartay xaqiijiso inay been yihiin aad ogaanayso waxyaabo la yaab kale waxaa ka mid ah aan aad iyo aad u xusuusto miidiyaha localka gudaha ku jira aadka ugu dhow dawladda waxay aad u muujiyaan wadada la yiraahdo Maka al-Mukarrama ay aad u muujiyaan oo dawladdu ku xoog badan oo dawladdu ku xoog waa wadada kaliya ee Muqdisho dawladdu marto business ugu badan ku yaalo nololna ay habeenkii ka jirto marka runta loo hadlo xamarta kale waa bahala galeen oo taas dadkana daawanaya Cabdalla Nairobi jooga ama dunida dacaladeeda in nagala socday barnaamijkan la hadal iminka daawanaya haddii la yiraahdo wadadaas oo kaliya ayaa la soo muujiyaa oo magaalada Muqdisho meelihii kale dawladdu sida loo malaynayo maaha maxay macnaheedu noqon karaysaa oo dadkaasi aan ugu sheegi karaynaa sheekadaas inay dhab noqon karayso sida aan anigu u aamini kari lahayn dhowr bilood ka hor qofkii looga sheekeeyo in ay xaaladaas Muqdisho ka jirto maanta loogama sheekeyn karo soo Nairobi jooga kuma qancin kartid laakiin waxa kaliya qofka ku qancin karo waxay inuu tago arko wax meesha ka jira waxaan arkay isbaarooyin weli magaalada yaalla oo yaa iskale dad baa iskale ama ciidan ku sheeg ama maleeshiya beeled ku sheeg ama dawlad ku sheeg hoteelay u xirantay wadooyinka qaarkood dad hoteelo iskale ay xirantay meelaha qaarkood wadooyinka qaarkood waxay u xiran yihiin dad shakhsiyaad ah oo ama dawladda hore intay uga soo shaqeeyeen xilalka laga qaaday oo xaafad degan oo xaafadaas xirtay oo nolosha dadka ka gooyay markaad ka baxdo wadada dheer ee ka baxda sooba ka baxday afgooy aada waxa taala marka laga bilaabo ex control marka laga bilaabo ilaa aad ka tagto afgooy waxa taala 5 isbaaro waan maray wadadaas 5 isbaaro taala oo iyaguna dadka baad lacag looga qaato waxa jirta in wadada ka baxda number 4 ee aada airportka inaan la mari karin oo ay u go'an tahay askar dawladda ah oo qaarkood lacag ku qaata oo qaarkood dadka musaafarka ku qasba inay maraan shirkad la yiraahdo sahal xitaa qofka isagoo gaarigiisa wata private-ka oo shakhsiga oo safar u socda in lagu qasbo inuu meeshaas waa tahay halkaas aan ka soo laabano waxa jirta isla sheekadan nin Soomaali ah oo muddo dalkii ka soo maqnaa Mombasa deganaa dalkan Kenya gobolka xeebta in hadda dib Muqdisho ugu laabto hal abuur la yimi noloshiisa uu ku soo saarayo bal ninkaas iyo sheekadii aad ka qorto ku lamaanayd sheekadan Muqdisho ay soo kabanaysaa qaybta ka ahayd bal noo guud mar sidee ku kulanteen ninka noloshiisa waa maxay muxuu dadka u sameeyaa waa ma santahay Cabdi mar kale shakhsiyan ka journalist ahaan anigu waxaan ahay dadka aadka u jecel inay dhinaca saxaafadooda ay u janjeerto dhinaca shacabka dadka nugul dadka la yiraahdo grassroots la yiraahdo bulshada u ah dhidbaha oo ah ee lugaha oo ay bulshada ay ku taagan tahay aan horta saxaafadda dhinacaas ka jecel inaan ka fiiriyo anu ma ihi dadka ka daba orda ama jecel ama raadiya dadka suudadka wata ee maarta xafiisyada jooga ee wareysyada waqti badan isagama bixiyo waqti badan oo kuma lumiyo waxa kaliya aan raadiyo waxa dadka u baahan in la sheego storygooda ama sheekadooda in la sheego u baahan anoo jooga garoonka Muqdisho ee saaxiibanaha sheekaysanayno ayaa waxaa la iiga sheekeeyay nin la yiraahdo Axmed Xasan Sheekh oo Mombasa ka soo laabtay oo Muqdisho garoonka jooga oo maartay sameeyo artistka gacanta lagu sameeyo oo runtii standard ah oo aad u qurux badan oo ujeedadiisu ay tahay in uu ka qayb qaato nabadda iyo dadku inay dib maartay soo laabasho iyo xasilooni ay helaan ka qayb qaata ayaa la iiga sheekeeyay
waxaan goostay aan la kulmo Axmed waan u tagay maalin waan arkay sawirada uu sameeyo artistka waaweyn qaarkood wuxuu soo dhigaa wadada ayuu soo dhigaa sababtoo ma haysto dukaan ku iibiyo ma haysto laakiin dadka ajnabiga ama airportka mara ama meelahaas yimaada ayaa mararka qaarkood ka iibsada hoteeladuna waxbay ka qaataan laakiin suuq saas u weyn u badan ma haysto wuxuu weli wadaa dad dhalinyaro ah inuu inta tababaro oo maaragtay ay ka qayb qaataan artistkaas si noloshooda ay ugu dabiraan dhinacna waa ka shaqo abuur dhinacna waxay ka qayb qaadashada bilcidi xamar marka waxaan weydiiyey haddii lagu dhihi lahaa muqdisho maanta tilmaan sawir ku sheeg maxaa tilmaami lahayd marka wuxuu yidhi horta anigu qalin haysta qori ma haysto كلمة آدي هاد مارتها يقنعني سانية. واحد جرتي هذا الكيس مرة حجاني سو أو عاد لبا بالضحك لسه سقوا ده هي معنى إيه ما يالنا يسنا أنا قارئ كده قال ما أنا جو هلي كره قليل أو واحد بدن دنيا ده يبرشوني كوحكسو بدلي. آدي هاد. كلمة اسمك وكيري كسحفية هالمدام أتهرج وحقرة الدنيا ده صومالي ده أنا كنت سقالين كودا ورجيسيو ده أنا وحكو قرا وضمك للدوان سوين لا أخرستو محاضر أنت هذه قد سلاد حسامين ويكويالات. markaan hadalkiisa dhageystay sida bilowgii barnaamijka ku sheegay waxa ii muuqatay in dadka Soomaalida ah ee Muqdisho degan shacabkan ka hadlay inay yihiin dad niyad wanaagsan inay yihiin dad dhinacii loo jeediyo u jeedsamay oo diyaar ah inay ka qayb qaataan wax walba oo wanaag iyo horumarka iyo dibudhiska dalka laakiin ay ka maqan tahay hogaankii meesha ay ka diloobeen ee ay ka rafaadeen ee ay ka gubteen dadku inay tahay hogaanka oo musiibada kaga dhacday taas ay muuqatay marka Axmed sheekadiisu waxay ku saabsanayd inuu raadinayo in Muqdisho bal uu u sameeyo image fiican ama sawir fiican uu sameeyo marka waxa markaan weydiiyay waxyaabo uu sheegay waxa kamid ah maxaad ku muujin lahayd Muqdisho markaan irin wuxuu yiri waxaan sameyn lahaa shimbir duulaysa oo dul maraysa hotelkii Jubba dul maraysa oo maaragtay sidata afka ku sidata laan qoyan oo cagaar ah oo maaragtay isugu jirta cagaar iyo casaan isugu jirta ayaan tilmaami lahaa iyo dhismihii magaalada oo xagga kalena ay ka saaran tahay badda ay ka saaran tahay ayaan badweynta ka saaran tahay marka sawirkaas ayaan wuxuu yiri Muqdisho ku tilmaam maxaa ujeedadu tahay markaa wuxuu yiri waxaan tusi lahaa ama muujin lahaa ma jeclahay inaan soo bandhigo 27 sano muuqaalka laga fikirayo Muqdisho daaro burbursan dhibaato rafaad dhintay qolfoof jug dhacaysa madfac meesha laga fikirayo in hadda laga fikiro ama dib aan dadku ugu celiyo Muqdisho markay joogtay 80kii ama 72kii sidii ahayd ayaan rabay dib inaan ugu celiyo yiri watahay waxa igu maqaalo ahayd sheekadaasi markii aad qortay sheekada Axmed sheekh dunida ay gaartay in durbaba dadka qaar ay ka soo jawaabeen sida adna uga xunnahay in dawadayaashii Axmed buugu cudur daarto muuqaal uu inoo soo diray oo arintaas intii aynu daba soconay ku aadanay inaan soo bandhigno cilad farsamo inoo soo ragal waysay bal arintaasi markii ay dhacday sheekada Axmed la baahiyay wargeyska The Guardian lagu qoray Ingiriiska ka soo baxa ilaa hadda wax saameeyna oo ay dad aan Soomaali ahayn Cabdalla ay ku yeelatay ma jirtaa aadiyad saddex maalmood markii laga joogay markii historigaas baxday 13kii July ee historigaas baxday anagoo Nairobi jooga ayaa historigaasi baxday waxa saddex maalmood markii laga joogay ee la soo xiriiray nin Ingiriis ah oo Lira Thomas oo isbitaal ku jira markaas xanuunsan wuxuu yiri waxaan la hadlay international deskiga ee maartay qaybta arrimaha dibadda ee xafiiska geeska The Guardian ayaan la hadlay iyagan ka soo helay wuxuu yiri contactiga meesha kala soo xiriir marka email buu ii soo diraya Thomas wuxuu leeyahay waxaan ku jira isbitaal waan xanuunsanahay kuma aqaan kuma garanayo Soomaaliya ma aqaan laakiin hadda ka hor ayaan waxaan helay sawirro Soomaaliya laga soo qaaday Muqdisho laga soo qaaday oo aan ku soo bandhignay carwo sawirrada ah oo London ah halkaas ayaan ku iibinay sawirro Muqdisho laga keenay oo magaalada Muqdisho dhismaheedii hore muujinaya lacag baan ka sameeyay lacagtii account baan ku shubay ma isticmaalin waxaan wuxuu leeyahay sawirada cidii soo qaadaba lacagta iskale ama Soomaali baa leh meel bandhigay sawirada company-giisa sameeyay oo diyaariyay company uu leeyahay workshop oo sawirada sameeyay uu leeyahay Thomas marka lacagtii markii ay ka soo xarootay waxay dhigeen bangi account bay ku shubeen dhigeen marka waxaan ka fikirayo yiri cid aan ku caawiyo oo aan maxaan ku qabataa lacagtaas aan ka fikirayo laakiin wuxuu yiri markaan arkay maanta story ku saabsan Axmed meeshan ku qoran yaan waxaan go'aan ku qaatay inaan kula soo xiriiro kula soo hadlo oo aan waliba ku dhaho talo isii maxaan ku qabtaa ku sameeyaa marka Thomas si fudud baan ugu jawaabay waxaan ku yiri maasan tahay
ninkaasaa jira Axmed la yiraahdo storygan aad ku aragtay waana kugu xiraaya anigu ma rabi inaan waxa u qabanaysa iyo waxa u sameynaysa aan aniga kala hadlo waqtina uma hayo laakiin toos isaan kugu xiraaya la hadal la xaajo toos waxaan ugu xiray marka Axmed waa gartay marka waa Muqdisho jooga dabadeed maxaa dhacay kadib waxaa dhacay Axmed iyo Thomas muddo wada xiriirkooda sameynayeen labadoodana waxay go'aansadeen waxa ay ku wada hadlayaan in aniga ila wadaagaan markasta aniga ma codsan mana weydiisan laakiin waxay go'aansadeen in ila wadaagaan oo ay ila socodsiiyaan emailka aan helo mar walba copy inaan helo oo ay CC ku soo siiyaan markastaba nabadgelyada waxay isla gaareen in lacagta account ku jirto oo adiga $700 ku dhow in laga soo saaro oo Axmed lagu wareejiyo oo la siiyo si uu ugu horumariyo shaqadiisa wanaagsan sawirka gacanta cidna aysan ku garabqadeen cidna aysan ku ogeyn ee uu dadka Soomaalida iyo shacabka Muqdisho u hayo taasi waxay noqonaysaa miradhalka iyo mid sheekaad ka samaysa Soomaaliya oo dadka qaar magaaladan quruxda badan oo muujadaha badweynta Hindiya ay dhinac ka garaacayaan markii ay arkaan iyadoo burbursanay isweydiin jireen magaaladii dalxiiska Afrika inay sidaan tahay meelaha ugu wanaagsan oo haddana la muujinayo sawir in lagu soo celiyo warbaahinta dunida ay ka iibisay waa sheeko kale xiiso leh Cabdallah uu imaado Soomaaliya warbaahin fara badan baa ka jirta oo idaacada iyo TV iyo wargeysyo iyo website-yo wax qora leh inkastoo warbaahinta digitalka ahayd sida YouTube-kii ay soo kordheen iyo arrimaha kale oo la xiriira bal waxaad iiga warantaa uga faa'iideysanaa warbaahinta Soomaalida sida warbaahintaasi ay sheekooyinka ay sameeyaan ay saameyn u leeyihiin oo kale aragtida وسؤال في عن دتك Soomaalida ee ku jira saxaafadda horta ama gudaha ka shaqeeya ama meelaha kala duwan ka shaqeeya inta badan waxay media ama u fahamsiin oo arkaan in laba u mid tahay mid negative sheegta iyo mid positive sheegta anu laakiin waxaan qabaa inaysan labadaas ba ahayn oo media inay waxaas wax u dhaxeeya inuu yahay inaadan ahayn yes man inaadan maartay waxay dhahaan Muqdisho laga nacamleeyo wariyo ma aha nacamleeyo mana aha inaan noqotid nacamleeyo mana aha inaad mar kasta aragtid waxa xun yes hadii ay jiraan wax xun oo qaldan waa inaad sheegtaa waa inaad ka leexan dad baa waxay marka qaarkood journalistiyaasha waxaan ku arko xitaa waxaan tagay Kismaayo waxaan tagay Baydhabo Garowe waxaan tagay Gaalkacyo Muqdisho dad baa wax mariyaasha marka ka hadlayso waxay ku leeyihiin wadanka dhinaciisa fiican yes wadanka dhinaciisa fiican ka hadal sheeg laakiin hadii dhinaca fiican wax dhibaato ku ah Soomaaliya hoosteeda dab baa ka qiiqaya war dabka si loo damiyo hal la sheego musuq baa jira xatooyo xoolo dadweynaha jirta dil baa socda oo dadka la dilay gabar 9 sano jirta Muqdisho lagu dilay ilaa hadda cid loo hayo ama maxkamad loo taagan ma arkin inkastoo ninka dawladda ay sheegtay waa xiran yahay shaqada hadii dawladdu xirto ha keento waa qodob kamid ah qodobada maaragtay caalamka ku wareersan yahay ku xad gudub xuquuqda aadanaha waxa maalin walba jira oo la sameeyo handadaad iyo waxa la sameeyaa xarig loo geysto dadka saxaafadda ku jira ama ka shaqeeya oo mararka qaarkood lagu handoodo maxaad uga hadlaysaa waxa dawladda qaladka ay sameynayso marka aan ku dhameeyo su'aashaadii hore waxay ku saabsanayd waxay ahayd ma uga faa'iiday saxaafadda ma uga faa'iiday looga waxaa jira hawlo badan oo ay ahayd in saxaafaddu intay baarto banaanka soo inta sheegaan oo ay sameeyaan xataa kuwa state media ee dawladda u shaqeeya maamulada Puntland Galmudug Jubbaland South West Hirshabelle dawladda federaalka kuwa xataa media ah oo iyaga u shaqeeya xitaa waxay ahayd inay baaraan hadii xafiisyada dawladdu ay ka jirto musuqmaasuq oo xoolaha dadweynaha canshuurta laga soo qaado islaanta masaakiinta ay suuqa joogta lacagta laga soo qaado hadii la xadayo ay baylaha ku baxdo waa in la sheegay waxay in la sheego askariga $100 mushaarka u qaata ee wadada taagan ee la yiri amniga sug ee qaraxa sug mushaarkiisina dhimanaya ee laba maartay xaas leh ee 8 ciyaal u joogto ee la yiri $100 mushaar ha ku noqdo $20 qaad ku cuna maalin kasta $100 maxay u qaban kartaa askarigaas waxay in laga hadlo tilmaamay ahayd waa su'aal isweydiin karo ma ahan dalka baarlamaanka 275 ku jirta kaliya baarlamaanka ma ahan interest golaha wasiirada isku soo koobtay kaliya ma waa dadka shacabka ee wadooyinka taagan ee masaakiinta waxaad arkaysaa qof aan haysan kun shilin shilinka Soomaaliga markaad joogto Muqdisho xitaa shaah lagu magacaabo waa tahay Cabdallah waxaad la shaqeysaa Wall Street Journal waxaad la shaqeysaa The Guardian BBC da mararka qaar qaybta dibadda la hadashay la shaqeysaa warbaahinta Soomaalidana waad ka soo shaqeysay oo muddo badan shaqo wadaag weyn oo ahayn dib markaad u laabato labadii dhinac aad fiiriso maxaad ka baratay oo aad dhihi lahayd warbaahinta Soomaalida way u baahan tahay in la sameeyo oo casharey noogu filan tahay sida hadii aan sameeyno xitaa waxbaan qaban karaynaa oo dhibaatooyinkan taagan hoos baan u dhigi karnaa runtii aan ku daro warbaahin
fiican haba tiri yaraadeen oo isku day at least isku day sameynaya inay wax un fiican qabtaan way jiraan iyagu in la amaano way tahay iyagu laftikooda laakiin culayska hadaan sheegay wuu haystaa maalin kasta handadaad iyo qorindho ka gelin baa lagu hayaa taas in horta tilmaamo waa muhiim maxaad kula taleed ama sameyn bixeed aniga waxaan qabaa in la helo ama warbaahintu noqoto afka shacabka public service in ay noqoto sida aan adduunka kale wadamada kale ku aragnaba halkan aan joogno Kenya maxaa ka dhacay waxa ka dhacay waxay tahay in saxaafadu ay ka hadlaysay musuqa ka jira wadanka mas'uuliyiinta waxay sameeyeen inay ka hadlaysay oo ay tilmaamayeen maxaa u diiday saxaafadu Soomaaliya saas oo kale noqoto maxaa loo diiday in inta la baaro la sheego waxa la soo bandhigo maxaa diiday cabsi baa la muujin karaa aan tusaale u soo qaato maalmihii ugu dambeysay waxaa jira fariimo aad soo bandhigtay oo warbaahinta qaar ay qoreen oo qaybta online-ka ay si weyn u qoreen waxaa ka mid ahayd warbaahintan Observers la yiraahdo Hon Observers ayaa ka mid ahayd sheekadaada wax qoray Hiiraan online qaybta Englishka lagu soo bandhigay in aad leedahay waa la ii hanjabay oo aniga nafteyda ayaa mararka qaar qatar wajihi kara yaa ku hanjabay aan ku bilaabo horta marka aad tahay journalist ama media aad ka shaqeyso qatarta already waxay ku leeyahay daris mar walba waad ku jirtaa qofka waxa ku dhacayeen wax Ilaahay u qadaro oo waay mar kastaba laakiin in taxadarka iyo digtoonida mar walba qofka uu qabo journalistaha ee uu arimahaas oo kale la socdaan way fiican tahay sheegista aan sheegay arimahan iimaylaha ay ka imaanayeen qayb kamid ah taxadarkaas iyo iyaduna tahay sababta keentana waxay tahay in nasiib darro waxay ahayd dawladuhu markay arkaan in qalad dawladda ka dhex jira marka la soo bandhigo oo la sheego in dawladuhu ay dhahaan waa mahadsan tahay qaladkaas waan saxeynaa laakiin nasiib darro Muqdisho waxa ka jirta qofka wariyaha marka uu tilmaamo bulshada cabashadeeda in inta la hadlo lagu col yiraahdo Facebook aan jabsanaynaa waan ku dilaynaa waa ku aragnaa halkaas aad joogta saasan ku yeelina waa ku soo xireynaa aniguna tuwaas baan markasta wajahan mar walba wajihi jir laakiin kuwa ugu dambeeyay waxay ahayd 14 October maalintii la xusay maqaal arintaas ku saabsan ka sameeyay ay dadka cabanay ay leeyihiin Muqdisho wali amni ma aha hal sano kadib dawladda dadku ay u qabatay qaraxii October wali maartay hal nin baa la toogtay aaway dadkii kale 3 qof iyo 4 qof laga hadlay xagee ka baxeen lama hayo waxa laga hadlayay askar ku dhaawacantay difaaca dalka ku dhaawacantay maalintii 14 October wasaaruhu meesha ka hadlay intay tagay ka hadleen yiraahdeen waxba looma qaban askartii wasaaraha ilaalinaysay ay jujub ma aragtay meesha uga saareen waxay muwaadinkaas cabashiis in la dhageystay ahayd sida ay la tahay aniga ma ahayn markaan ka hadlay muwaadinkaas ardiis in aniga oo Nairobi jooga inta la soo hadlo yiraahdo ku dileynaa iyo saasan ku yeelinaa aniga cid ma dil karto waxba iguma sameyn karto waa tahay hanjabaadaas kulli aad sheegtay warbaahintiina ay qoreen oo leedahay dhinaca dawladda iyaga timi iyadoo waliba Soomaaliya loo gaar mararka qaar dhibaatooyin ay la kulmaan suxufiyiinta kuwa fara badan la dilay wasaaradda warfaafinta dawladda Soomaaliya iyo cid dawladda ka tirsan oo kula soo xiriirtay oo qatarta nafeed iyo amaan aad muujisay adiga inay kula soo xiriirtay kala hadashay jirta ما ماركن أنت نسيب درس صاحبه في عالم كله وزارة الورفافينته وأنا ضد أهل وأهميديا وقاركودنا عن سفي عن اسم نقان قارنا عن موضوع الشقين نبا أركز صحفيين تقارنك أركز صحفيين تيها ويكور قبائل أنت ولا سحريين وين للسعودان عريداس وين دبل السعودان سيدو كلا أوردا كلا ماركتاي أرما ورياشة كهذلا جارها أمني كوكو قابل سنة أيوة وين للسعودان عريداس ويكوجرتا أولريد ريكورد كيكوجرتا marka hadda Nairobi aad joogtaa waa suuragal inaad dalka ku noqoto shaqooyin aad ka soo qabato sida mararka qaar aad u aado wax cabsi ah oo aad dareemayso ama ku aadan hanjabaadaasi kaaga imaanayo bulshada Soomaaliyeed iyo fariintan aad u gudbinayso aad nala wadaagi kartaa ma jirtaa hadda markasta oo aan Soomaaliya tagayo waa markasta oo aan ku jiro taxadar ku jiro taas markasta igama dhamaanayso cabsi ma dareemayo sababta cabsi dareemayo waxaan dhihi lahaa ama shaqadan dhaafaya ka tagaya ama dadka ii hanjibay ayaa dhihi lahaa waxa aan rabtiin idin sameynaya inaan cabsanayn marka tusaale waxa u ah inaan joojinayn wixii aan qorayay iyo wixii aan ka hadlay inaan joojinayn dalka ma ku laabanaysa hamar walba ku laabanaya markasta oo ay warbixin mudata in laga hadlo ee dadka Soomaaliyeed ee magaalooyinka degan meel kastaba taabanaysa ay jirtana waan daba istaagaya waan qoraya waan sheegaya Soomaalida wariyash maxaad oran lahayd Soomaalida guud ahaan waxaan dhihi lahaa dad Soomaalida meel kasta oo joogaan gaalkacyan tagay oo isu furan labada dhinac magaalada waqooyi iyo koonfur la isu socdo oo caanaha la cabay habeenkii la caweynay waxaan tagay Garowe oo ma aragtaa aad wadooyinka dhinaceeda ku cabita shaaha waxaan tagay Kismaayo oo aad ma aragtaa intaad xeebta tagto aad ma aragtaa kalluunka cunayso waxaan tagay Muqdisho oo saas oo kale la mid ah oo ma aragtaa qofka Soomaaliga si uu qoon
uu maartay ku soo dhaweynayo hatta soo waligiis kula kulmin dadka Soomaalidu meel kasta ay joogaan waxaan tagay magaalada Afgoye waa la mid laakiin problemka kaliya haysta waxay tahay oo aan ka qarribin dhinaca siyaasadda waa hogaan xumaana haysta dadka Soomaalida hogaan fiican in Ilaahay siiyo ha ku duceystaan dhowr subax ka horna salaada subaxeed masjid Nairobi oo dariskayga aan ku tukanayo ducada laga aqrinayo waan u sheegay oo ah Ilaahow maaragtaa ha nagu salidin hogaan xun ama talada ha noogu dhiibin dadka ashraarta ah ee talada noogu dhiib dadka wanaagsan ee khayarta in dadka Soomaaliyeed marba ku duceystaan wariyaashan waxaan leeyahay saaxiibaya wadaalisa meel kasta oo joogtaan iyo waraagina sababta tababarada wariyaashan ku jiray waana arkay dadka niyad wanaag ay sameeyaan laakiin isku daya in idinku walba waa ladii hanjabay waa dhimanaysaa dhibaato way jirtaa idinku dhibaatada ku jirto idinku sharaf leh ku dhinta inaad ka hadashaan musuqmaasuqa iyo dhibka iyo dilka iyo rafaadka iyo qaxa ummadda Soomaaliyeed lagu haayo marka waxaad leedahay qalinka wax suuraya kuga sima halka doonto aad iyo aad uma saddex watahay Cabdulla Axmed Muumin ayuu ahaa oo khiyaarteena daawanaysa ay kamid ah bahda saxafiyiinta Soomaaliyeed oo wax ku qora qaar kamid ah wargeysyada dunida oo maanta martiin ugu ahaa barnaamijka la hadal RTN xaaladda siyaasadda ammaanka iyo waliba horumarka ka jira wadanka Geeska Afrika ee Soomaaliya ayuu barnaamijkeenu kula falanqeynaa anigoo Cabdicasiis Barrow waan idila socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo